haddii ramadaanka bilowgiisii iyo maalmihii ugu horreeyay dayacaad badan aad samaysay, haddaad xumaan ku mashquushay, haddaad ahayd kuwa habeenkii dhafra oo waxa xunoo la fiirsanahayo habeenkii oo dhan ku dhafrahaya, haddaad ahayd mid lagu imtixaanay wakhtigiisoo dhan inuu ku dhex jiro Facebook iyo YouTube maantoo dhan aflaam musalsalaada daawanayo, haddaad ahayd mid caado u leh habeenkii oo dhan inuu ku dhafro daroogo iyo jaad, haddaad ahayd mid xoolo xaaraana inuu cuno habeen iyo maalin u taagnaa, maalmahan yarka ah oo kuu haray bishaan barakaysan tub ilaa rabbika, ilaahay u toobadkeen, ilaahay u toobadkeen, istikfaarta badi ku celceli, allahuma innaka cafuun tuxibu alcafwa facfu canii, allahuma innaka cafuun tuxibu alcafwa facfu canii, allahuma innaka cafuun tuxibu alcafwa facfu canii. wuxuu nabigeennu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam tobankan dambe mid didaala siduu u didaali jiray maalmihii hore si ka badan buu u didaali jiray. wuxuuna yidhi nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam man qaama ramadaan iimaaنا واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi, waman qaama laylaة اlqadri iimaaنا واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi. qofkii laylaة اlqadri istaaga, ilaahay isku taaga, cibaado iyo khayr u taagan, isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga ajar xisaabsanaya oo rumaysan, dembigiisii hore oo dhan waa loo dhaafa. tobankan aan ka faa'iidaysanno oo toobadkeenka aan xoojinno oo istikfaarta aan badinno oo baryaha ilaahay aan badinno. ma aha naftaada keliya inaad u ducaysanaysid oo aad leedahay keliya rabbi kfir lii, ma aha waalidkaa keliya, ma aha muslimiintoo dhan u ducee, naftaada u ducee, waalidkaa u ducee, ahalkaaga iyo ilmahaaga u ducee, ilaahay bari subxaanahu wa tacaala inuu kaa aqbalo ramadaanka. waa ka nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam liلsaa'imi dacwaة laa turad. qofka sooman wuxuu leeyahay baryo aan la celin ayuu leeyahay. kaasaad haysataa, fursadda qaaliga ka faa'iidayso. maalmaha yarka ah waxaad ku khatimtaa oo ku gebagabaysaa soom badan iyo salaad badan iyo sadaqo badan iyo cafis badan iyo baryo badan oo ilaahay aad baryaysid iyo ixsaan dadka aad u samaynaysid iyo alkelimatu اطayiba sadaqa, kelimadda wanaagsan waa sadaqo. ha ku bakhiilin, khayrka ha ku bakhiilin. wixii aad bixin jirtay labalaab, qur-aanka akhrin jirtay badi, salaadda aad tukan jirtay waxa weeyaan laazim oo ziyaadi oo badso. soonkii waxa weeyaan waxyaalaha dhibahayoo dhan iska ilaali, ilaahayna subxaanahu wa tacaala weydiiso inuu ku waafajiyo toobad inaad ku dhimatid. maalinta adduunyada aad ka guuraysid oo ka baxaysid inuu ka dhigo min aakhiri kalaamika, aakhirka kalaamkaaga ugu dambeeya laa ilaaha ila اllah. wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllah dakhala اljanna. qofkii u ahaado kelimadda ugu dambaysa adduunyada markuu ka baxahayo laa ilaaha ila اllah, jannada ilaahay buu galaa. ilaahay cadaabkiisa hanaga xoreeyo, ilaahay cadaabkiisa hanaga xoreeyo, ilaahay cadaabkiisa hanaga xoreeyo. kuwa jannada ilaahay ku guulaystana allah inaga dhigo, maalmaha inaga dhimanna kuwa ka faa'iidaysta oo ka khaniimaysta ilaahay haynaga dhigo. khayrka badan oo bishaasi ay leedahay si guud iyo si gaara maalmahaasi ay leeyihiinbaba ilaahay hayna waafajiyo. laylaة اlqadri khayru min alfi shahr ayaan rajaynaynaa ilaahay inuu waafajiyo. dalka u ducee, dadka u ducee, awlaaddaada u ducee, aabbayaalka iyo waalidka u ducee, naftaada u ducayso.